taliye waa mahadsan tahay sida wanaagsan adiga iyo saraakiishaada igu soo dhaweyseen halkan oo hadee si joogto ah ama si marmarka qaarkood aan kugu imaado inaan soo booqdo oo aan xog wareysano oo aan xisaabtano maalintii halkan aan ku soo booqday April 12keedii sida xasuustaan si fiican baan wada hadalnay waa xog wareysanay xog wareysiga waxa ka dhashay in ay sheegteen dhaliilaha jira iyo sida la rabo dhaliilahaas in loo saxo hawlaan kala qaadanay hawlihii aan kala qaadanay hadda 2 sano weeye waxaan halkan maanteedu ku weyd inaan xisaabtano cidii ka soo baxday hawsheeda iyo cid aan ka soo bixin aan dib u fiirino wixii dhacay wixii khaldamay aan isla aragno sidaan wax u sixi karno 2 sano soo socotana aan soo diyaarino waa xasuustaa qaarkiina waxaan laga yaabaa in xasuustaan waxaan ku wada hadalnay waxaad ii sheegteen dhibaatooyinka iyo duruufaha jira duruufahaas haddii la xaliyana muddo 2 sano ah dalka in shabaab looga xoreynayo anna waxba ay farteen inaan ka soo baxo anna waxba idin faray meeshaas waxaan ku kala qaadanay ballamo yaan ku kala qaadanay waxaad tiraahdeen ciidankan waa duruufaysan yahay muddo dheer mushahar ma qaadan dhibaatooyin badan yuu qabaa maxaan ku yiraahdaa rasaas la'aan iyo hub la'aan yaa jirta haddii intaas la xalliyo oo duruufaheenna waajibaadkeena waa gudanayna halkan marka waxaan idinku yimid maanta inaan iswareysano oo isxog wareysano annaga wixii aad noo dirteen oo ahaa duruufihiinna inaan meel saarno oo ay kow ka ahayd mushaharaadka raashinka oo taxana ah oo aanan ahayn sida taqaaniin wax talantaali ah ama bildhaaf aanan ahayn oo aad noqotaan dee saraakiil sugta ama ciidan suga guud ahaan mushaharaadkooda iyo xuquuqdooda waqtigii loogu talagalayna ay qaataan waajibaadkaas yaadna saarteen oo waxaad tidhahdeen annagana waa ka soo baxaynaa inaan cadowga ummadda Soomaaliyeed ka dulqaadno intaas ma xasuustaan weliba saraakiishii markaas joogtay taliyayaashii markaas joogay waxaan u sheegay waxaan la wadaagay khibradayda marka 7 sano ka hor markii aan barnaamijka ka noqday ay shabaabku madaxtooyada hoosteeda iyo baar bulsho ay joogeen in duruufahan aad sheegteen oo kale ay qabeen oo markaasi taliyayaashii aan u yeeray oo iyo weliba amisom ay ii sheegeen intaad ii sheegteen 2 sano ka hor waxay ii sheegeen in ciidanku mushahar lahayn in raashin uusan lahayn haddii intaas loo xalliyo oo duruufahaas iyo dhibkaasi ku jiraan la xalliyo muddo 3 bilood ah inay xamar kaga saarayaan shabaab ilaahay waa noo fududeeyey intaan joogay waxaan xaqiijiyey bil walba iyadoo hore loo arag inay u helaan ciidamada qalabka sida ee geesiyaasha xuquuqdooda inay helaan bil walba waqtigooda ay helaan iyo raashinkooda iyagana waajibaadkoodii waa guteen waana ka adkaadeen shabaab magaalada muqdisho ana waa ka xoreeyeen annagoo taageero ka helayna ciidamada amisom ee markaas joogay oo ahaa ugandheeska iyo burundeeska hadda markii 2 sano ka hor aan ballantaas qaadanaynin waa idinkaga warramay waa idinkaga xog warramay arrintaas waxaan idinku yidhi 2 sano ma idinku yarta waxa ay igu tiraahdeen darees ka qaado iclaami dagaal 2 sano waddanka ku xoreeynaa haddii aad ka soo baxdo waajibaadkaaga maanta waxaan halkan la taagnahay marka 2 sano marka laga gooyo 2 bilood hadda 3 bilood oo hawlo kale ay bilowdeen si joogto ah bil walba ma u helayseen raashinkiina iyo mushaharaadkiina ma u helayseen ciidamada qalabka sida khaasatan ciidamada xoogga bil walba ma u helaayeen idinku aad taliyayaasha u tihiin bil walba joogto ma u helaayeen hadda ogaada wax hore loo arkay ma ahayn waana waxa iga filayseen aniga kow waad ogeydeen taageerada aan u qabo ciidanka xoogga iyo guud ahaan ciidanka qalabka sida
oo inkastoo aysan badnayn mushaharaadka qaadataan ay aad u yar tahay oo ay ahayd budget aan ugu nimid weliba $50 yaa la qaadanay sax u xasuustaan oo bilaaf $100 yaa la siinay horay $100 yaan ka bilownay dhaqaalaheennii wax badan iskama bedelin laakiin waxaan ku guulaysanay ballantii dhankeenna inaan fulino ilaahay waa nagu guulay aan idin weydiiye marka labadii sano idinka shabaab ma ka xoreyseen dalka ma ka xoreyseen marka ma oran karaa marka taliyaashii waagaas joogay ballanta iga qaada ballan idinka ballan fiicnaa ma la oran karaa waagaas xamar ka xoreeyey oo igu yiri 3 bilood aan kaga xoreeynaa xamar ma idinka ballan fiicnaayeen marka ma isweydiiseen marka inaan ballantaas hore u lahayn annaga dhankeenaan ka soo baxnay wixii aad u baahnaydeen intii karaankeenna ahaa inaan fulinay laakiin idinku weli aydan xitaa igu soo noqon oo aydan oran waqtigu waa nagu yaryahay qorshihii iyo maxaan ku idhaahdaa iyo balaankii aan bedelno waqtaan u baahannaha weliba waxaad igu darteen rasaas iyo hub ma haysanno taasna waa fuliyey iyada naftigeeda alxamdulilah maanta dhib kama taagna arrinta hubka iyo rasaasta dhib kama taagna arrinta raashinka iyo mushaaraadkana dhib kama taagna arrinta caafimaadkana dhib kama taagna soomaaliyana waxaa haystaa cadow aad u fara badan mid dibadeed iyo mid guda labadaba waa haystaan midka dibadda soomaaliya inay istaagta lama rabo sidaan inaad ku jirtaan ayaa la rabaa maxaa yeelay meesha aan ku naalno nimcada aan haysanno noloma ogola waxaa la rabaa in nalagu maamulo intaas adduunka oo dhan wax alla wixii kaa xoog badan yaa raba inay ku maamulaan iyagaana ku dagaalsan siday ku maamuli lahaayeen waxay saameyn ku leeyihiin dad waalaalheena ah oo dalka nala leh oo muwaadiniina oo shaqada u qabanaya weliba si xasilooni darro siyaasadeed iyo xasilooni darro dalka ugu jiro si dowladahaas iyo dadkaas shisheeye ay uga helaan wax alla waxay rabaan waxa la rabo oo sida aan nahay hadda ay tahay inaan ku jirno waxa weeye danta laga leeyahay waxa weeye wax walba oo nalaga rabo inaan yes niraahno oo qabkii iyo dadnimadii iyo damiirkii Soomaaliyeed aan meel iska dhigno sharafkii Soomaaliyeed aan meel iska dhigno sababtana waxa weeye dal waxa cudud u ah oo xoog u ah ciidankiisa u ah kuwa gudaha waxa ka shabaab oo iyaga naftooda gacan saar la leh maxaan ku raahdaa dibad gacan saar la leh iyo dad kale oo runtii u arka hadduu xaalka isbedelo dalka xaalkiisu bedelo dan inaysan ugu jirin dantooda ay tahay oo keliya dalkan inuu destabilized yahay uusan xasiloonaan macnaheedu waxay tahay waa qof danleeya oo danaysanaya dantiisa ka shaqaysanaya dadka niyadda u dhisi lahaa shacabka Soomaaliyeedna waa idinka oo cadowga gudaha iyo cadowga dibadda ka difaaci lahaa taas weeye waxa dalkan aan uga horeyn karno qolooyinka khawaarijta ah oo ummadeenna iyo dalkeenna iyo dowladnimadeenna iyo sharafkeenna aan doonaynin oo maalin walbaba isku dayaya waxa ka soo haray waxa weeye argagixisanimo yaa ka soo hartay inay miino iyo bambaano meel soo dhigaan oo la yiraahdo ciidamadii qalabka sida aaway maxaa ku dhacay maxay hawshooda u qabsan waayeen oo shacabka iyo idinka la iska hor keeno saraakiil aqoon dhinac walba iyo khibrad leh yaa alla idinka dhigay haddaan marka ku mashquulno waxyaabo yar yar oo aan fogeyn nin danaysanaya oo wax meel dhiganaya oo ciidankiisa ka warqabin waxa weeye way adkaanaysaa inaan guusha keenno xaqiiqatan waa adkaanaysaa shaqada aad haysaan maaha shaqo caadi ah maaha waa shaqo aad naftiina ku waayi kartaan rag idinka fiican ama rag idinla mida naftooda hore ugu waayeen
ودل كان ماشان وتاجيه سو جارسي لقى بلابو حرينتي محن هذا محن هذا اسمها لقى حرينا يا شباب أنتي سومالي أمسوم كجريوتي إيه حرينت حمر إلا لقى جاراي جوهر إلا لقى جاراي براوي كجريودي قوشي وهي حيد إنان حينه أو أن ولي بوجسي دوانه ما لها أيام قعدت كوها يا حيا الشعب كي هذه الربا شكلكم يجوا حقيقة إذا كانوا نجسيل يهين أو لا يقانو وأدوك ودنا يكتب ميهين إذا مليه وين هرتاجنا لكن هو أستانا اللي يهين لكن ده جيش وحبوب طريق مايو هادوس السركال في عن أو نظامك يدسبلينك يقارن ماذا أنا أودي أرسلين أقول كستولية waxaa garaadaha u sidataan darajooyinka waxay u sidataan inaad dalka ka xoreysaan khawaarijtan iyo cid kasta oo soo hunguriyeysa dalkeena maanta cid walba hunguriyeynaysa waxayna u hunguriyeynaysaa dad la'aan nama hayso karti la'aan nama hayso qorshe la'aan nama hayso waxaana hayo waxa weeye in la dhaqaaqo shacab fiican weeye shacabka Soomaaliyeed وايدن تاجران وايدن قرب تاجينهين هذا بو حلو بعيه إذا كان حيصنه إنه سحية إذا كان حيصنه إنه يعيدن جرح أو ضبعه هذه دولتي وأنا قال الحوار وقاهي عن ديار وقاهي إن نسين حقوقه أو المخاطي على مخاطي فرتين هل صنع يتهم براد تحناء أيسن بالموايين وحبنا وجماعها لا وصلوا ضمبه إن ديارنا حقوقه وحبنا وجماعها واحد بدل ومدعين راشين كينا واهل إنسان مشاهرات كينا واهل إنسان نيدس كينا يوم مورل دس كينا واهل إنسان ووايدين قرب تاجر هاي شعب كصومالي وايدين قرب تاجيهين وايدين هيليهين ديار يديهين يدس كينا يوم مورل دس كينا واهل إنسان ووايدين قرب تاجر هاي شعب كصومالي وايدين قرب تاجيهين وايدين هيليهين ديار يديهين إذن كسه مدفاعي كرتان عروتنا مدفاعي كرتان دفاعنا مدحوينه ولا ليال وأوجه هنا دفاعي كرتان أنا أدين أركي أنا مرخاتي